dugsiga tababarka booliska dowlad goboleedka hirshabeelle oo ay ku jiraan ciidamo tiradoodu gaaraysa 200 oo ka mid noqon doona ciidamada booliska dowlad goboleedka hirshabeelle oo ah dufcadii ugu horeysa oo boolis oo yeelata dowlad goboleedka hirshabeelle ayaa maanta halkaasi gaaray si uu dhiirigeliyay wasiirka amniga iyo dhaqan celinta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaana wasiirka warbixiyay macallimiinta dugsiga qaar ka mid ah macallimiinta tababarka halkaasi ka bixisa oo ay ka mid tahay Sahra علي أحمد أو شيكتي تابرك هالك أو مرايو وحان هاي معلمين توح كبرت ماشان أرضيدان وحان مهد كاره وعلينينا معلمين تعمي صوم هي معلمين فدرال كتمدي يكو كلا جبي جود أدي أمهات سيهين وحان كلا شرف وين إن أي أرضيدي عن وحبريني سوى ناكسن أي نوع دقيستين تابركنا سفي عن أو وصعده مركان وياه جبو وحسن الكاسكال وزيرك أبني قد عن علينتا دولة قبلت كرشبيل عبد القادر آدم جل وحنا الكاسك جدي قطبت وكل رجلنا أيو دلنا تابرك وصعده هذا إنتهى ماذا إن ماركتي kormeer ciidankii ugu horeeyay boolis uu yeesho dowlad goboleedka hirshabeelle ciidankaas oo tiradiisu ay tahay 198 waa guul iyo farxad u soo hoyatay dowlad goboleedka hirshabeelle iyo qaasatan wasaaradda amniga iyo dhaqan celinta hirshabeelle waxaan rajaynaynaa insha Allah sida macallimiinta ay sheegeen sida ugu soo baxdeen maartay koorsooyinkii iyo casharada aad qaadateen iyo sida leedku amaanay in anagana insha Allah markaad halkan ka baxaysaan nin walba uu yeesho insha Allah akoon uu maartay mishaarkiisa ugu soo dhici doono inaan sameeyno insha Allah istiraatiiji balaanki ku shaqeyn leedahay ku howlgal leedeen waxaan rajaynaynaa insha Allah marka halkan ka baxdaan inaad ka hor ka shaqo bilowdaan ciidanka xigo oo soo xaroon doona insha Allah inay noqdaan kuwa insha Allah iyagana sidaan si ka fiican maartay tababarkooda ugu soo baxo xilliga kula awgiis khudbadeeda maraba insha Allah inaan sii dheereeyo waa idin mahadcelinayaa insha Allah sida wacan oo waajibaadkiina ugu soo baxdeen وليس إن شاء الله السلام عليكم أبو بكر محمد بعدله وربعين دقيقة الصوماليات عاصمة الدولة قبلت كرشبيلة مقالة الجوهر.